النابلس إن أنا قلت آمن آدم حسن على مقعد الليرة هو إذا محمد الشيخ محمد عمر ليرة أبتجد أيد هو إذا سين عوار الليرة هو إذا أيد دينا ليرها أو ليرها هو إذا أيد حليمة شرب odaygan weyn aa u jeedin kulaha nadiiraan dhalay haba idhale waa u dhali karaa koow laakiin markuu hadda isoo sheegay koow hortii first one intuu igu ogaa marka labaad ku soo hadhay ninka ka hoos hadlaya ee odayga weyn kilifaya walaal adigu amal mad raadsatid walaal adigu mad magac sameysatid qof bil aadana magac u sameystay inaad qof kale ku soo lifaaqo waa laga fiican ana alxamdulillah rabbil alamin aabahi waa la yaqaana maxamed ciga ilbiraal lahaa إلهي وحجزت ماشي على قفل بقول تاجيه إله ونحرست أباه ودنتي وأنا الأبى هناك هذا أباه برنس مئه مركها أو وادي كان والو ساقل ده هذي من تنتجات كنت كوب وصل جرو على جوجا ده يقف كان دليلين هاي دليلين عيب كسلينا هاي وأنا اللي يقنا عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدب إيدي سلام أصحابتي دقائق الشيء تضوي بدتي مر ده نذير أنا القبيل أنا ضد أنا القبيل هين مرة ده أنا أبهد بانه أضيق سجاشن شركة حكمة دنتي صار دمعتي أنا يجو صار دمعتي كلها نذير أبهد بانه وان بافيني هلي جيو مرة أصحابتي دقائق يصود درس وحنو شيء أنا أبه الحمد لله ماشي لو بهنا وشراء الله وده السوق يسوى أبه ودنتي أبه محمد عقال لها إلا نحرس شنها كورابيو odaygan weyn asagaashin jirka lacagta inta soo siisay ku qaraabanaysid intaad iska deysad adigu magac raadso walaal wiilow khayr Allah ku siiye curudkiina muxuu sheegay yaraantii oo taadii bismillah aan yaraanaaba reerka dhan baana u yaray kala dhan u soo sheegan waay markuu aan isoo sheegana wiilasheena dhan inta ku iloobo wallahi Soomaalidu way halawdo mar qof qabiilkiisa la iska sheegto oosan ahayn qofna wuxuu iska soo jaraa nadiiran ku qabiilaho aniga dadkeena fanaanada caanka ama fanaanada dhanka fanka aad ku saameynta faraha badan ku leh dhanka waqtiyada ama sanadadan dambe waxa aad u soo batay ama dhanka social media aad u soo batay sida iyada ay sheegayso ama sida iyada ay baahinayso ama sida iyada dhanka Instagram-ka ama dhanka social media meelaha ka isticmaasho ama meelaha aad ka loo xiiseeyo ay ku soo baahisay inta social media la isdhex wado arintaas ay tahay in aabaheeda ama uu baahinayo ama aabaheeda uu ka maqnaa marka arintaasna iyadana way beenisay waxay tiri aniga aabahayga wuu geeriyooday ama aabahayga ma ahan odaygan marka odaygaas arki karto ama garkiisa arki karto ama aad ku qiyaasi karto daadiisa 65 sano jir ilaa adiga oo yaraan 75 sano jir marka arintaas iyada way beenisay waxayna tiri ma ahan sidaan ma ahan ay ku celinaysaa marka ma garanayo sababta ku qasbi karto ama aabahaas ama waayeelkaas sida u garanayso in qof oo dhalin oo yiraahdo waan dhale ama aabahid baan ahay oo baafiyo oo hadale dhanka social media inta soo fadhiisto ama cameraman hortooda soo fadhiisto oo arintaas oo ku dhawaajinayo oo leeyahay gabadhaas way iga maqan tahay gabadhaasna aniga ayaan dhahayo waana arin qof walba oo aan sameyn karin ama qof walba waayeel oo ku dhaqaaqi karin معقول قفكي مركز وحسي دبعت أجرا أما وحسي حقيقة أجران إنه أرنتس وكل دقائق أما أرنتس وكذا بيكرو وأنا واحد لو بهاي مركز لكن إذا السيدة أي باهين السو أما أي سوشيال ميديا أما دانك إنستغرام كذا أما دانك يوتيوب كذا أي كسب باهين السو إن أي أرنتس تهاي أرن بينا مركا إذا نوحي تاجن تهاي وحاسة يقسم من السا مجا marka mal dhigi karaa ama waayilkaas waqtigaas jiro wuxuu raadinayaa maya marka taasna waa mid ani ahaantayda ama shakhsi ahaantaada aan isdhihi karno arinta laba mid bay ka dhaxaysaa in ay waayilku saxan yahay ama gabadh ay been sheegayso ama waayilka oo qaldan yahay ay gabadh run sheegayso marka qof ma jirto aabaheeda ama inkirayso ama isigoo nool marka taasna ilama ahan aniga 100% marka arintan waxa ka dambeeyo la isdhihi karaa ama sida iyada ka dhawaajinayso dadka ag joogo ama dadkii markaas dhanka social media markaas ku soo baahiyay ama arintan dhanka social media ku soo baahiyay oo oday ama waayeelka ama aabaha muuqaalka ka soo duubay oo arintaas ku dhaqaaqiri waana 100%